Mr. Elon Musk ayaa noqday qofka ugu maalqabeysan caalamka kadib markii ay hantidiisu gaadhay $185 bilyan oo u dhiganta 136 bilyan oo geni. Ku soo dhawaada mawduuca maanta. Magacayguna waa Cali Ibrahim. ganacsadahan oo iska leh shirkad soo saarta gawaadhida korontada ku shaqeeya ee Tesla iyo shirkadda SpaceX oo farsamaysa dayax-gacmeedyada ayaa darajada taajirnimada ee ugu sarreysa ee caalamka galay kadib markii maanta ay shirkadiisa Tesla kordhisay qiimaha saamiyada ay iibinayso. waxa uu booska ugu sarreeya ee taajirnimada ka saaray Jeff Bezos oo ah mulkiilaha suuqa online-ka ah ee Amazon, kaas oo ilaa 2017 hogaaminayay suuqa. shirkadda gawaadhida ee Tesla ayaa qiime aad u sarreeya yeelatay sanadkan cusub, wuxuuna qiimaheedu gaadhay $700 bilyan oo u dhiganta 516 bilyan oo geni. arrintaasi waxay shirkadiisa ka dhigaysaa mid kaligeed ka qaalisan marka la isku wada daro shirkadaha farsameeya baabuurta ee Toyota, Volkswagen, Hyundai, GM iyo Ford. Mr. Musk ayaa warkan markii lagu dhawaaqay si cajiib ah uga falceliyay, isagoo yidhi waa wax lala yaabo farqiga shalay iyo maanta. faa'iidooyinka ka soo xarooda cashuurta laga qaado gawaadhida korontada ku shaqeeya ayaa sii badin doona dhaqaalaha Tesla oo haddaba saameyn weyn ku leh dhaqdhaqaaqa suuqyada. King Video Production. King Video Production. King Video Production.